halkan waa xarunta daarutaqwa ee daaweynta sixirka, jinka, xasidka, isha iyo umusubiyaanka, waxaana dadkan lagu daaweynayaa qur-aanka kariimka ee qowlka Eebbe iyo sunnaha nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. dadka halkan ku sugan oo u badan dumar ayaa dhammaantood waxay muddo sanado ah la dhibaatoonayeen sixir, jin, il iyo sidoo kale umusubiyaan dhibaatooyin kala duwanna u geystay. Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli ayaa dadkan ku daaweynaya qur-aanka kariimka ee qowlka Eebbe. muddadii koobneed aan goobta ku sugneen ayaa dadka badankooda waxa laga saarayay jin, sixir iyo isha qaybaheeda kala duwan, waxaana qur-aanka kariimka ee qowlka Eebbe ku daaweynayay Sheekh Cali Mukulli oo ah maamulaha xarunta daarutaqwa. هذا مو ستيشن. حاول ستيشن. واسو هنا وادنا ولا عرنا. واسو حسان. وادي شان ولا عرفته. ما أنت كذي. كل كل هذا. تمر يري. معك. خبرش عندنا. خبرش وكذي. رجع خدته. ما أنت كذي. ما يوقف. أنت بقول كوريا. ما يوم أنت بقول كذي. عر. Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo kooban uu joogi doono magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, isagoona xusay in dadkan uu ku daaweynayo qur-aanka kariimka ee qowlka Eebbe iyo sunnaha nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. waad arkaysaa dadka dhibaatada haysata hadday il tahay xasad noocyada kala duwan, isha sixirka noocyadiisa kala duwan, hadday tahay shaqo in lagu reebo, hadday tahay in lagu dilo lagu talagalay, hadday tahay guurka in lagu burburiyo, waxyaabaha xasidka maganaysaa sixirka oo qaybihiisa kala duwan sida aragtaa, jinka qaybihiisa kala duwan. maanta waxaa weeye dadkii markay badatay alla laga fogaaday oo magaranaysaa diinta ilaahay laga fogaaday, alla ka cabsiga markuu yaraaday, waxaa in la isdhibaateeyo, jinka la isku adeegsado, sixir in la isku dhiibo, in la isxasdo, waxaa keenay waa markii laga fogaaday weeye. alla ka cabsigii baa maganaysaa aqoonsamankii baa lagu jiraa insha Allah. Sheekh Cali Mukulli ayaa waxa uu mas'uuliyiinta dawladda ugu baaqay in dadka laga soo qabto dadka wax sixir oo dhibaatooyinka dadkan u geystay. magaalada 90% saaxiriintu way ku badan yihiin sida xaqiiqada waaqac jirana waa dadka haddana maanta ummadda laga qabanin, maamul aan magaranaysaa ummadda ka qaban, maamulka ummadda haday ka qabanin, dhibaatada maalin walba way taagnaanaysaa. gabdhahan inay la garoobeeyo waxa sabab waa saaxirka magaalada noo joogo. dadkeena shaqaysanay ganacsiga ahaa magaalada inay ka cararaan 90% Muqdisho nagu yimaadeen magaalada ka soo carareen. reer Boosaaso ganacsatada way shaqaanaan, wax magaalada ka ceeriyay wax kale maaha, waa saaxirka magaalada Boosaaso jooga. ma garanaysaa dadkii maanta sariirada lagu aruuriyay caafimaadka ma garanaysaa laga qabsadayna waa sixir loo sameeyay ajrigiisa waa insha Allah. ilaahay idinkiisa ilaahay waxaan ka rajeynayaa allaha boqorka koomkana keenay, waxaan ka rajeynayaa saaxir magaalada Boosaaso joogo hadduu ilaahay toobad leeyahay allaha toobada Allah ka aqbalan leena oo ummadda sixirka Allah ka daay. hadduu toobad lahayn ilaahay waxaan ka baryaynaa indhaha iyo qalbiga maskaxda inuu ilaahay tiro, Allah ka qabto. ilaahay baa noo dhaxeeya, Allah naga qabto shartooda iyo sixirkooda, Allah naga qabto. way doonayaan halka inay burburiyaan, way doonayaan magaalada inaan ka tagno. bil xaqiiqa aan sheegaya magaalada Muqdisho waa nagu sameeyaan, magaalada Boosaaso way doonayaan, laakiin nama qaban karaan. ilaahay baa naga kaashana, ilaahay baa ku kalsoonahay. dadka ducadooda masaakiinta dhibaataysan, hooyo ooynaysa cunug wadata oo aan soconaynin, cunug indhala, cunug aan garanaysaa aan hadlaynin, markuu ilaahay ka hadalsiiyo halka quraanka lagu saaro imise ducaynaysaa. ducadaas ilaahay nagu badbaadinaya. ilaahay baa naga nala jira, Allah macayna ah, ilaahay baan ku faanayna, ku kalsoonahay, waxba naga qaadi maayaan biidmilaahi baar ilaahay idinkiisa. ugu dambeyn Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli ayaa waxa uu xusay in magaalada Boosaaso ay u noqon doonto xarunta labaad ee daarutaqwa, isagoona sheegay in marar badan uu ku soo laabanayo magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. muddo yar kooban baan joogi doonaa reer Boosaaso, waxaan ii sheegay mar kale soo noqon doonaa xarunta labaad, waxaan ka dhigi doonaa magaalada Boosaaso. waxaan rajeynayaa waliba halka inay si joogi doonto insha Allah. garanaysa xaruntan ee waan garanaysa laga tagi doono, albaabka noo sii xirnaan doono, waqti yar kooban waan imaan doonaa, bishii ama sanadkiiba waqti baan siin doonaa magaalada Boosaaso. xarunta daaweynta qur-aanka kariimka iyo sunnaha nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee daarutaqwa ayaa muddo kooban shaqaynaysa, iyadoona uu ballan qaaday Sheekh Cali Mukulli in uu ku soo laaban doono magaalada Boosaaso muddana uu joogi doono. Xamse Cabdirashiid, SBC, Boosaaso.